يا سلام دي بنها تايها بلديا يا سلام كدرن تبكيو إلكو تدحوي يقبي لوين kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Salma Vlog and Entertainment waxaan idin kala gelinaynaa in muddooyinkan arrimo mashquul awgeed aan kala baadnay oo aan idinku soo gudbino sheekooyin qosol iyo qaraaxo ruwaayado qaybta vlogska iyo waliba xubinta moogtahay dad nagu cusub tahay subscribe de oo qaybta gaduudan ku dhufo oo meesha gambaleelka ah riix si aad u hesho muuqaaladeena dambe insha Allah maantana waxaan idin soo gudbinaynaa safarkii Zimbabwe aan ku tagay iyo wixii aan ku arkay caasimadda dalkaas ee Harare 10 sano oo dhowr bil ka dhiman ka hor ayaan socdaal ku tagay dalka Zimbabwe oo ah mid ka mid ah dalalka markaas ay xaaladaha kala duwan ka jireen ee abaaraha iyo dhaqaale xumida intuba muhiimadeydu ma aha inaan idinkaga warramo dakhliga dalkaas uu haystay marka aan tagayay balse waxaan isdul taagayaa si kooban dhaqanka dadka meelihii aan tagay xarumaha aan dhex galay iyo waxyaabihii aan ku soo arkay warshayga markii hore waxa uu ahaa inaan ka gudbo oo aan saacado kooban ku nagaado dalkaas balse qaybta immigration-ka oo aan ku daahnay waxay sabab ka dhigtay in habeenkii aan safarka u sii dhaqaaqno abaara 9 subaxnimo ayaan waxaan ka gudbay xuduudda Mozambique oo la wadaago dalka Zimbabwe waxay ahayd safar dhibkiisa lahaa hayeeshee alle waana samagay ugu dambeyn lacag u dhiganta $5 oo lacagta Mareykanka ayaa qofkii laga qaadaa marka immigration-ka ama xarunta socdaalka ee dalka Zimbabwe uu tago oo waa qasab inay hadda ka badan tahay waa macquul lacagtaas 10 sano ka hor sidaa bay ahayd qofka ayaa marka lacagtaas soo bixiyo waxa uu sii wadan karaa safarkiisa dhulka waxaan ka baxnay aniga iyo 3 dhalinyaro ah safarka oo aan ku wada jirnay oo aan ku lugeynay meelo kala duwan oo magaalada waxaan tagnay carwooyin dharka lagu iibiyo dad qalbi wanaagsan ay ahaayeen oo na soo dhaweeyay dhalinyarada aan ku aragnay goobaha dharka lagu iibinayay inkastoo wax iibsi aan u socon markaas haddana waxaan qiimeynaynay sida ay ganacsi ahaanta tahay magaalada banaankeeda waxaan fadhiisanay meel maqaaxi ah si aan u raashin cunno lacag $2 oo hal iyo hal ahayd ayaan watay waxaana ku dalbaday bal waxaan cunay in la igu keeno gabar meesha joogto waxay noo keentay soor iyo maraq lo hilib ayaana la socday inkastoo hilibka looda aanan aniga cunin soorta waa ay macaaneyd oo dadka waxay ahaayeen kuwo u diyaarsan inay shaqadooda ku qanciyaan macaamilka la jooga dawladda markaas waxaa madaxweyne ka ahaa Robert Mugabe caasimadda dalka waa Harare waxay ahayd meel duleedka ka ahayd goobta aan markaas carwooyinka iyo socdaalka raashin cunistaba aan ka sameynay ilaa galabtii ayaana ku sugnayn duleedka magaalada habeenkii ayaan bas nooca waaweyn ka raacnay magaalada Harare waxay ahayd meel aad u shidan iftiinkeedu sareeyay isdhaafdhaafka gaadiidka nuucyadiisa kala duwan ayaana ii muuqanay ciidamada amniga ayaa sugayay iyadoo sidaas aan uga sii gudubnay dalka South Africa dhacdadii nagu qabsatay xuduudda Zimbabwe iyo South Africa qaybta kale ayaan idin kula wadaagi doonaa insha Allah gudaha daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh oo subscribe saar channelkan si aad ula socoto muuqaaladeena dambe insha Allah waa anigu Xasan Xayi Cabdullaahi oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo